gudoomiyaha gobolka Sool duqa degmada Laascaanood gudoomiye ku-xigeenka gobolka isduwaha wasaaradda hawlaha guud injineerada wasaaradda hawlaha guud agaasima waaxidada wasaaradda hawlaha guud ee ku sugan xafiiska gobolka xogayaha gobolka isna dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka sokow waxaa inoo faahfaahiyey ujeedkii saaka aynu isugu nimi ama baaqa halkan aynu uga dirayno dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood injineerkii iga horreeyey ee wasaaradda iyo duqa degmada mudane cabdiraxiin cali ismaaciil oo runtii halkan ka sharaxay ujeeddada aynu saaka isugu nimi aniguna ka agaasimo guud ahaan labada qodob ee laga hadlay uun baan sii xoojinayaa marka koowaad halkan waxaanu baaq uga diraynaa ama ogeysiin uga diraynaa ama war dardargelin ah aan uga diraynaa dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arrinta iyo qorshahaanu saaka u nimi ee wasaaraddu safarka iyo socodka u soo gashay waa arrimo national issue ah oo qaranka iyo dadka iyo dowladdaba runtii iyo shacabkaba gacanta loogu hayo arrimaha laba qodob baa buddhigu ah intaanu maanta halkan uga sheegana baaqeeda laba qodob baa buddhigu ah labada qodob waxa weeye qodobka koobaadii sidaynu ka warhayno magaalada Laascaanood waxaa ku yaalla guryo ay leedahay dowladdu guryahaas waxana waa xafiisyada iyo ofiisyada institutionska dawliga ah oo iyadu dowladda ku jirto gacanta ku haysa waxana waa guryo degsiima ah oo residential ah oo guryo deegaana ah oo muddo badan dad shicib gacanta ku hayeen oo ay ku jireen sida gobolada kaleba ka jirta guryaha tiradoodu waa 330 guri inta magaalada Laascaanood ku taala ee hadda la degan yahay ee shaqeynaya iyo hal kaalin 330 guri iyo kaalinta waa isku 430 noqonaya sida uu qabo xeerka wasaaradda maaliyadda iyo ka wasaaradda hawlaha guud iyo kuwa dowladaha hooseba waxa looga baahan yahay in laga xereeyo lacag kira ah oo dowladda u dhacda lacagtaas horumarintii dhulka iyo miisaaniyaddii iyo cashuurihii bulshadani ay isku celceshanaysay bay ka mid tahay mandate-ka wasaaradda hawlaha guud dowladda nimbadda waxba uga wakiil yahay oo gacanta ugu haya waxaa ka mid ah gacan ku haynta iyo kira ururinta iyo wasaaradda waxaana lagu shubi doonaa ma aha xafiis wasaaradda hawlaha guud mana aha mid gobol wasaaradda maaliyadda baa tacrifadda haysa oo lagu shubi doonaa wixii kira ah marka waxaan ogeysiinaynaa dhammaan dadka ku jira guryaha kirada ah ee degmada Laascaanood ee dowladdu leedahay si ay adna kuugu xalaalowdo oo salaada aad ku tukanaysaa u xalaalowdo oo waxa weeye hurdada aad seexanaysaa ay xalaal u noqoto oo ku noolaanshaha xalaal u noqdo waxaan ummadda wada leh dhammaanteen bay naga dhaxaysaa dadka deegaanka iyo dowladda iyo ummadoo dhanba waa hanti shicib iyo hanti ummadeed hantida ummadda maadaama intii ugu badnayd aad manfaacadsanaysa cid kuugu timi iyo cid kaa saaraysa iyo cid kaa eryanaysaa midna ma jirto laakiin si dowladdeennii iyo dakhligeenniina ay u kobciso idinkana wixii ay idinku xalaaloobaan waxaanu idinku wargelinaynaa inaad bixisaan kirada guryaha dadka reer Laascaanood way is ogyihiin wixii kura ku jira waxaana lagu bixin doonaa grade A grade B grade C grade D intuba tacrifadeedu waxay taallaa xafiiska maaliyadda ee heer gobolka Sool marka taa kirada iyada intaasaan runtii ku wargelinaynaa shacabka reer Laascaanood qodobka labaad waxaa jira runtii 2018-2019 wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta iyadoo kaashanaysa xafiiska gobolka iyo ka duqa degmada waxaa halkan laga sameeyey master plan ama fidin magaalo iyo maabkii magaalada Laascaanood in dib loogu noqdo in la kordhiyo in wadooyin loo sameeyo in wixii qorshe magaalo u lahaaba qorshe magaaleedkaas wuxuu socday 18 iyo 19 qayb ka mid ah muddo dhowr bilood gacanta lagu hayay shaqooyinka qayb ka mid ah oo xilligaa aan qabsoomin ama shaqadan kale baaxad lahaan noqoto ama khibrad ahaan ha noqoto ba hadda wasaaraddu gacanta ku haysaa in dhulka master plan ku maray ee hore loo qorsheeyey cid kasta oo reer Laascaanood oo dhulka wax ku leh inay timaado dhulkeedii ay istaagto loo cabiro loo aqoonsado certificate loogu sameeyo waxa weeye dhulkii hebel dhulkii ilmo hebel dhulkii hebla
in sidaa dee lagu aqoonsado shaqo muddo 12 casho ka hor baan halkan ka bilownay injineerada wasaaraddu adigu sidii la rabay isugumay duba dhicin ama khibrad xumo dadka ka timi ha ahaato ama caqabado uun dee shaqada ka mid ah ha ahaato arrinkaa waxaan reer laascaanood hadda ka horna madaxda weyn kala hadashay guddoomiyihii ku-xigeenkii hore gobolka iyo meeyarku shir jirayd halkan idinku qabteen saakana waa kuwan idin jooga governorkii iyo meeyarkii magaaladu in berri subax 6 subaxnimo cid kasta ay dhulkeedii timaado muddada 10 casho ah ee loo qabtay diiwaangelinta dhulka dadka ciddii ku imaan weyda in dhulkaas uu noqonayo dhul dawladdu ay leedahay oo dhul dawladeeda waxa weeye waxaan ku soo ururinayaa ama hadalkaygan ku soo gabagabeynayaa arrinka wasaaradda howlaha guud iyo dawladda hoose ee degmada Laascaanood iyadoo hormuud ugu tahay wasaaradda howlaha guud in lagu gacan siiyo shacabka degmada Laascaanoodna arrinka weeleeyaan bari ka maalin dee dacwad iyo buuq iyo meel baa laga qaaday iyo meesheedii baa dawladdu la wareegtay reer Laascaanood taaguma hayaan dhulkeenuna waxa weeye qof waliba in yar oo kooban buu dacalka ku haystaa marka waxaan ku soo ururinayaa ama hadalkayga ku soo gabagabeynayaa anoo madaxda kale ee gobolka uga bixi doona reer Laascaanood baaqa maqla dhulkiinii calaamadsada kaalaya shaqadii saad dhowrkii casho hore u timaadeen u soo xoojiya waxa weeye arrinkaasna waa wax undan u ah oo wax magaalooyinka kale ee Soomaaliland ka socda wax cid gaari tuurta ku wadato ama dawladda hoose tuurta ku wadato ama howlaha guud tuurta ku wadato ma aha waa shaqo wadaaga wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh